هاستن بربر ما حد قاعد صارت نوع علي ودوتي ها ايه ومدي وساع سوى توريسا كرسي دير اسكا توريسا ما تشابين انو هيس waa garin way waxay tahay dadku soo tuurayo bararka way niyo midhaheedii ma ii heli kartaa hadaad akhriid midhaheedii hadda ka hor waxaa jirtay gabadh fanaanada oo la yidhaahdo deeqa afro oo iyaduna qaaday hees la yidhaahdo hees magaciid saaxiib anigaa ku jecel sax haddaad tiraahid walba bax wax caynkaasa marka siiqada ay gabaygaas murtidaas soo socoto aliyo hees waxa weeye waa aniga u jiifa qurqur way aniga macna sameyn masa qurqur jacayl ku xiray sarsar jacaylku ku xiray sarsar way intuu igalay dardar intuu igeliyay dardar ayuu ii tuuray barbar waa dadku markay tuurayo way ayuu ii tuuray barbar dhiigayga ma u raacay farfar dhiigay farfarkaas wuxuu yahay garan mayno inta igu jooji haye inta igu jooji haye inaba wax murtiyood ka dhaxashay ma jirto wax allaaliya waxaan ka dhaxelay ma jirto dadka jabaya ma dadka saas wada tuuraya ma haddaba heesta markii aan eegay qiime murti suugaaneed lagu qiimeeyo oo la yidhaahdo suugaan fiican baa gashay iyo waqti fiican baa galay ma jirto haye dhadhan iyo music ka sarreeya kuwii soo socday weegagan u dambeeyey ayaa ka dhex muuqda iyana ma jirto marka waxaan sirniyo ma heesta waalan kuwa sameeyey iyo kuwa qaadaya iyo mise dadka marka waxa ii soo baxday heesta ninka qaadaya iyo ninka sameeyey inaanay midna khaldanayn dadkan daawaday ayaa waalan isturtuuraya dee dadka saas wada tuuraya nooc iska kibira waa nooc maala yacni noloshana khatar bay ku waa nooc dad aad moodid in maskaxdooda ay faaruq tahay waayo heesta haddii aad dhegeysatid dareen ay ku gelinayso xitaa ma jirto waddankaas maxay u digi waayeen marka bilaash bay isu tuurayaan runtii waxaa daawaday heesta yaasiino 2 milyan oo qof ogaalkay sheekh mustafa iyo sheekh umar iyo sheekh idris iyo culimada kalena waxaa daawada 2-3 kun marka waxaad moodaa in runtii gadaal loo sii socdo dadka gadaal soo tuureen buu sii socdaan haye sugaantooda ay dhamaatay aqligooda dhamaaday maskaxdooda ay dhamaatay caruurnimo in dib loogu noqday waayahay bal waxaynu eegi doonaa culimadii oo ay saamaysay heesta bal horta aanu eegno sheekh maxamed saciid oo isaguna arrintaa dhalacaynaya iminka shalay doraad hees baa soo baxday 3 milyan oo qof bay marayaan dadka YouTube ka daawaday muxaadarad maanta tafsiir quraanka ama muxaadaro sheekh jeediyayna waxa 200 oo qof inaanay eegin barbarkaas la isugu wada tuuraya heestu barbar baa la yiraahdaa heesta nasallallahu salaamata wal aafiya saasay ummadii isugu wada tuuraysa sodohihii baa iyagoo tamaanadii iyo baradadii jarjaraya waxa bay reerihiina waxa laga yaabaa iminka gurigii ku noqotaan iyagoo gacmahoodii baa ilaahiin islaamihii waayo iyagoo jarjaraya tamaanadii iyo basashii ay barbarka saay soo tuurayaan ka gidaarka ku dhacaya ka kursiga ka dhacaya ka barafka ku dhacaya war dhibaatadeen haysata ummadii dhibaata haysata cid allaali cid ka hadlaysaana ma jirto cid allaali cid ka sheekaynaysa ma jirto wax weeyaan qof waliba wax weey arinta uu la yaab kii la yaabeen uu la yaabay uu dhaqaaqaya kii kale arinta shaqadiisa dantiisa maaha ummaddu hadaanay iska qabanin walaalayaal fawaaxish waa ajaayib aliyo sheekhu qaal laakiin sheekhu si degdeg ayuu heesta markiiba u dhaleeceeyay sheekhu marka waa culimada ma heesaha dhageysta laftiisa ayuu dib eegi doonaa waa fiicanta inuu heesta dhaleeceeyo laakiin sheekhu waxa moodaa sheekh heesaha ku xidhan yaani inuu yahay aad buu dad badan oo dhageysan buu isagu markiiba dhageystay sheekh maxamed saciid horta culimada Soomaaliyeed badankoodu waxay dhaliil ku leeyihiin iyada oo arrin iyo marxad adag lagu jiro ay wax liftooda ka hadlaan arrin aan looga fadhiin heestan in culimadu isku mashquuliso culimadu waxa uga sokeeya intaas oo kun oo shay oo ummadda Soomaaliyeed maanta dhibaato ku haya kufsiga aynu ka hadlaynay bal culimada ka hadasho ummadda gabdhaha yar saa loo geliyay gabdhaha yar la kufsanayo ee waliba raggii kufsaday iyagii bura la siinayo bal culimadu soo halqaasay heesti karkar barbar ay ku meersanay sheekh maxamed saciid laftiisa waa sheekh eed loo haysto in uu lunsaday dhaqaalihii hawlihii ka socday abaaraha ee Soomaaliland haye far baa ku gudnay
شيخ لفتيس هي مركا شيخ بالورت انتانو بربر iyo karkar iyo waxaan isku mashquulay soo xisaabtamo uma doorto raali galiyo marka uu horeysaba marka culimada laftoodii ayaa qaar kood lagu jiraa not only isaga qura ma waaye heestan barbar ee uu ku qaado fanaanka Omar waxa uu horeeyay gabadh ku qaaday hees la yiraahdo aan walba saaxiibka baan hays صح deeq afro ayaan clip yar oo bal sida midhuhu u dhacayaan inay isu egin aan dadka tusayo aan ku soo dhaweeyo وايه wadarta samaha waaye baadaba heestan laga daba dhacay ee 2 milyan daawadeen ee la isku dilay ayaan iyadana eegina clip yar ka eegina inta horoon ano jiifa qurqur jacayl ku xiray sarsar kuy galiyay dardahan ayuu ituray barbar ano jiifa qurqur jacayl ku xiray sarsar kuy galiyay dardahan ayuu ituray barbar هي تاسنا واقرن waxaan ka baqaynaa suurtid وايه يا كرسي قاعد دير ما دور كجوا alxamdulillah isma toor waaye heestu waa tan marka haddaba habka midhahan ay u dhacayaan ee barbar iyo sarsar iyo karkar iyo curcur iyo waxan markii ugu horeysay anaa keenay oyoy ma adiga ha wada warayay soo ajiib horta أنا ويا بونه. أوكي. وساكو كده. waxaan keenay sanadkii 2010 أيوة. سنة بدن بلا. dadkana daawanay qaar badan baan doonay caligan miyuu heesaa ma fanaan ba laakiin habka markaan u sheego ay fahmi doonaan haye in la leeyahay Cabdi Fataax Daahir Cige oo xilligaa joogay Qaahira ayaan waraystay haye dabeetana wuxuu ii keenay qaafiyad aan ka yaabay oo aan suugaanta Soomaalida hore uga arkay haye marka calankan ku keenay curcur ayaa ku jirta marka barbar iyo curcur iyo karkar iyo saxsax oo dhan baa ku jirta Cabdi Fataax ayaan marka doonaya inaan maqashiyo codkiisii sanadkii 2010kii waliba hadii uu nool yahay oo ina maqlayo Cabdi Fataax waxaan ka codsan lahaa inuu inala soo xidhiiro kaftanka siyaasadda bal iyana daawasho wanaagsan Cabdi Fataax Daahir Cige oo jooga magaalada Qaahira ee waddanka Masar ayaa inoo haya gabay kulley sida uu socdo aniga iga yaabiyay bal dhageystow adna ila eeg calankan ku keenay curcur ninkii u yeela barbar dad yahow u gooyo farfar wuxuu gumaystuhu burbur dhulkii u keenay marmar naftaa tiraahda jarjar farasiiska jooga tirtir markaan u diiday shirshir inuu ka cabo durdur waa kii bilaabay birbir intii odhanaysay yuryurna waa kii u gooyay farfar dad yahow u ooya marmar haddaad arkaysid is markii loo laayay kaskas adaaban joogin wiswis waxaa jiraayay rag calankani u keenay degdeg oo u bilaabay digdig oo iska diiday sugsug iyagoo ku socda cagcag ayay ku keeneen luglug markaasay u diideen legleg uga siiya sacabka dhagdhag waxaana gaadhay dad baa la kulmay baxbax rag baa ka tirshay tixtix warkana u sheegay saxsax markuu noo diiday laxlax inay noo daaqdo dixdix wixii kalaamay cadcad haddaad tidhaahdo qodqod waxaa yimaada daddad kugu bilaabi budbud haweenka guudka cascas haddaad tidhaahdo tistis dabadeed tidhaahdo is iyagaanu raaci kaskas adaa ka qaadi wiswis waayahay waa heestii wey anu somaan bilaabin anu markaa heestaada bilaabay waa qima qaadid bay hay beriga maxaa la si turturi waay musiga loo baarad okay dabeetana waxaan la xidhiidhay nin abwaana oo runtii aan jecelahay sugaantiisa oo wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ka tirsanaa oo ogaalkay joogay magaalada Laascaanood Ismaan Cabdinuur Xaashi abwaankaas ayaan
dhegaystay markii aan sii daayay barnaamijkaas haye dabeetana isagii baa wuxuu ii soo diray ha qaafiyad tii oo kale ah haye inkastoo halkan iminka aanan gacanta ku haynin waa saase oo iyana barbar iyo curcur iyo karkarti ah marka horta wax jiray ayin bahayd eeg dadka Soomaalidu fakar lama yimaadaan fakar nin kale uun bay la yimaadaan fakarka waxa iska lahaa inanka birigan waraysi ka qaaday ee Cabdi Fataax Daahir ige oo aan Soomaalidu Qaahiro joogay ayaa credit iska lahaa marka Soomaalidu hadii imka meel aad ka furtid dukaan dacaska lagu iibiyo dacaska mid ma ka furanay next door ka kugu xiga ayuu ka furanayaa nin kale Soomaali waliba dacas Shiinaha laga keenay warqaysa ayuu keenaya waqti marka waxaad ku arkay Soomaali ma arki jirin shan farmasi oo isku xiga shan restaurant oo isku xiga oo isku dhinaca shan tubaakada iibiyo isku xiga marka waxa weeye caalamkan saas kama shaqeyso copyrightna male Soomaalidu waayahay marka heestan ayaa dhibka ay keentay waxa weeye culimadina way ka hadashay runtiina anshax xumo ayay ku soo kordhisay mujtamaca Soomaaliyeed waxaan ku tusayaa 70 jir u eg calaamadihii islaamka ka muuqdaan oo sidii ciyaalka heestan istuuraya isaguna bal daawasho wanaagsan ummadda aynu la hadlaynaa maalin kasta waa ummadda geela maxaa la odhan jiray duqdooda durduriso aarinkooda maxaa la inama tukanaya ayaan iyana kusoo gabagabaynaya oo salaaddii iyaga ku jira barbarkii isu tuuraya ummadda Soomaaliyeed